السلام عليكم. kubadda cagtu waa ciyaarta ugu xiisaha iyo xamaasada badan leh dunida tan aynu ku noolahay. Taageerayaasheeduna waxay ka badan yihiin bilaayiin qof, halka iyadu ku shuqul leeyihiin in ka badan 600 oo milyan oo qof. Ha noqdaan ciyaartoy, tababarayaal iyo mulkiilayaasha kooxaha u ciyaaraan ciyaartoydaasi, ama saxafiyiin shuqulkoodu yahay in ay tafatiraan falanqeeyaan ciyaaraha kubadda cagta. kubadda cagtu waxay astaan u tahay isdhexgalka bulshooyinka kala gedisan iyo isbaridda wajiyo cusub oo aan hore aqoon isugu lahayn. iyadoo oo taasi jirta haddana ma rumaysanaysa ciyaar dhexmarisay laba dal inay sababtay in uu dagaal ka dhex qarxa dhexdooda. labadaas dal dagaalka dhexmarayna waxaa ku qurbaxay kumanaan kun oo qof, waxaana sidoo kale lagu waayay hanti ka badan 8 bilyan oo dollar. dagaalkaasna waxaa ka dhashay colaad sanada sii jirtay oo u dhaxaysay labadaasi dal. sidoo kale ma rumaysanaysaa inaad weli videoga daawanaysa adigoo on like saarin kanalkana kusoo birin adigoo subscribe taabanaya. intaaba hadda inoo samee. mahadsanid, ku soo dhawaada muuqaalka maanta. kulan kubadda cagta ah oo dhex mariyay laba dowladooda jaar ah waxa uu ku bilaabmay si degan hase ahaatee waxa uu ku dhammaaday dagaal lagu hoobtay, iyadoo ay ku dhinteen kumanaan kun oo qof laguna waayay hantiyo gaadhiya bilaayiin dollar. sidoo kale laga dhaxlay dagaal socday 100 saacadood oo gow ah. goobtu waa garoonka Azteca ee ku yaala caasimadda dalka Mexico ee Mexico City. amintu waa 26 Juun sanadii 1969. dhacdaduna waa kulan loogu gudbeeyay koobkii adduunka ee sanadii 1970 lagu dhigay dalka Mexico. natiijada ciyaartu ku soo idlaatayna waa 3-2 ay ku adkaatay El Salvador oo lagaga adkaaday Honduras, iyo dagaal socday 100 saacadood iyo xidhiidh xumo u dhaxaysay labada dal sanado dhowr ah oo ka dambeeyay dagaalkaas. dagaalkii 100 saacadood ama dagaalkii kubadda cagtu sida uu caanka ku yahay sida muuqata waxaa sababtay kulan ka mid ahaa kulanadii loogu gudbiyay koobkii adduunka ee sanadii 1970 lagu dhigay dalka Mexico oo u dhaxeeyay wadamada Honduras iyo El Salvador. laakiin haddaan hoos ugu dhaadhacna sababaha rasmiga ee ka dambeeyay inuu dagaalkani ka dhex qarxa labada dal waa ay ka weyneed kulanka kubadda cagta ah, iyadoo xaalad siyaasadeed ka dhaxalostay labada dal sanadihii u dambeeyay intaan dagaalkani bilaabmin oo salka ku haysa arrimaha la xidhiidha qaxoontiga. ilaadaas dadyoga reer Salvador tiradoodu waxay dhammayd 3 milyan oo qof, badankooduna waxay ahaayeen beeraley, iyadoo taas jirta dhul beereed uu dalku leeyahay badankiisa waxaa gacanta ku hayay dad yar oo maalqabeen ah, taasi oo ku kaliftay in 300 oo kun oo reer Salvador u soo hijrooda qaxoonti ahaan ku soo galaan dalka Honduras oo 5 jeer laab ka ballaadhan Salvador. hase ahaatee beeraleyda reer Honduras waa ay ka soo horjeesteen arrinkan, waayo dadyoogan ka yimid El Salvador waxay ku cidhiidhiyeen suuqi. arrintaas oo ku qasabtay madaxweynihii Honduras ee waagaas Osvaldo López Hernández inuu kumanaan kun oo reer Salvador dalkoodii dib ugu celiyo. tallaabadaasina waxay cadaadis la saartay xukuumadda El Salvador, sababtuna waxa weeyaan dadyoogan dalka u dhashay ee dalkii dib loogu soo celiyay ee aan loo hayn wax lagu maareeyo. iyadoo xaaladda cakiran ka dhaxaloosan tahay labada dal ayaa waxa timid ciyaartan. dadkuna waxay rajeynayeen inay kubadda cagta iyo isboortigu isu keenaan wixii ay kala geysay siyaasaddu. hase ahaatee ciyaartani waxa ay noqotayba tii dabka ku horisay bilowga dagaalkan faraha lagaga gubtay. El Salvador goolka guusha waxay la timid waqtigii dheeriga ahaa ee ciyaarta lagu daray. guuldarradaasina waxa ay keentay inay shacabkii iyo dadweynihii reer Honduras laamiyada ku mudaharaadaan iyaga oo caraysan, sidoo kale ay ku tacadiyaan muwaadiniintii reer Salvador ee dalkooda degan. arrintaas oo ku qasabtay jaaliyadii reer Salvador badankoodii inay u baxsadaan dalkoodii iyaga oo ka yaacay guryahoodii iyo hantidoodiiba. xukuumadda El Salvadorna waxay si rasmi ah ugu dhawaaqday inay xidhiidhkii diblomaasiyadeed u jartay dalka Honduras, iyadoo ka falcelinaysa gaboodfalladii loogu geystay dadkeeda dalka kaas ah. 14 July sanadii 1969 ayaa xukuumadda El Salvador haddana mar kale ku dhawaaqday inay dagaal la gelayso Honduras. El Salvador waxay ku gaashaanayeen ciidamo gaadhay 20 kun oo askari, iyagoo ka faa'iideysanaya xuduudoodaas waxay gudaha u galeen xuduudii dalka Honduras ilaa ay in yar uga jirsadeen caasimadda dalkaasi ee Tegucigalpa. iyadoo dagaal baani ka dhaxaloosan yahay labadan dal ayaa ay qaramadii midoobay soo farageliyeen xabad joojina dhexdhiga. bishii August sanadii 1969 waxa ay gaadheen labadan dal heshiis dhigaya inay ciidamada El Salvador dibadda uga soo baxaan xuduudaha dalka Honduras.
dagaalkaas boqolka saacadood socday ee u dhexeeyay labada dal ee Honduras iyo El Salvador waxa uu sababay dhimashada 3,000 oo qof iyo dhaawaca 15,000 oo kale halka ay kumanaan kalena ku barakaceen hantida lagu waayay dagaalkaasina waxa ay ka badan tahay 8 bilyan oo dollar kadib colaadaas dabada dal dhex martay waxaad isweydiinaysaa miyay isugu yimaadeen kulan kale oo kamid ah kubadda cagta dabcan Honduras iyo El Salvador waxay wada ciyaareen ciyaaro kale oo rasmi ah oo tiro badan waliba nasiib wanaagna may dhicin shaqaaqo iyo mashaakil kale sidoo kale labada dalna waxay ku guuleysteen inay u wada gudbaan sanadii 1982 koobkii adduunka ee ka qabsoomayay dalka Spain hadda se waxay u egtahay inay Honduras kaga wanaagsan tahay El Salvador xagga kubadda cagta iyada oo 2014 koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka Brazil Honduras ay qayb ka ahayd 32 dal ee ciyaarayay muuqaalkeenu maanta intaas ayaa ku eegay fadlan haddii aad kanalka ku cusub tahay nagu soo bir adigoo subscribe taabanaya hana ilaabin inaad gambaleelka furato si uu kuu soo gaaro muuqaal waliba markanu sidaa u soo gelina videoga kan ahna like saar una sii share garaa asxaabtaada nabadee والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.